دخلتم إلى داخل الحرم المكي أثناء تنفيذ العملية. labaatankii Noofembar 1979 kowdii bishii Muharram 1400 Hijriyada waa maalin taariikhda baalmadow ka gashay kadib markii uu ka dhacay xaramka dagaal dhiig badan ku daatay oo ay ku dhinteen caruur dumar iyo dad kale oo aan waxba garabsan muddo 2 toddobaad safafka salaada waxa bedelay dad meyd ah oo safan saaxada masjidka eedaanka shanta salaadoodna waxa bedelay rasaasta iyo madaafiicda aan waqtiga lahayn dawaafka Safa iyo Marwa ayaa waxa iyaguna ay noqdeen goobaha isku eeryanayeen dagaalyahanada barnaamijkeena ogaalka dunida waxaan dib ugu milicsan doonaa wixii dhacay 1979 بعد تفتيشنا بشكل دقيق sidee wuxuu dhacay 1979 markii imaamka xaramka salaadii subax uu ka baxay ayaa waxa mikrofoonada la wareegay niman hubeysan oo ogeysiiyay dadka in uu maanta soo bixi doono mahdigii la wada sugayay sidaas aawadeedna loo baahan yahay in la baayaxtamo si uu la wareego hoggaanka ummadda islaamka qaar kamid ah kooxaha hubeysan ayagoo oo iska dhigaya dad caadi ah ayay safka u soo galeen in ay gacan qaadaan mahdiga waxaana xigtay in la xidho dhammaan albaabada iyo meelaha laga soo gali karo xaramka ilaaliyayaasha xaramka oo isku dayayay inay hor istaagaan ayaa toogasho lagu laayay dagaalyahanada oo aad u tababarnaa ayaa loo qaybiyay dabaqyada sare iyo minaaradaha iyagoo lagu amarsiiyay inay toogtaan haddii ay ciidamada amnigu soo weeraraan dadka gudaha kabacda joogay ayaa kala qaybsamay qaar waxa ay u qaateen in ay run tahay oo saf ay dhinaca ka galeen qaar kale oo u badnaa culimo aqoon leh ayaa iyaguna diiday ilaa lagu maquuriyay qori caaradiis imaamka xaramka oo markii ugu horeysay mikrofoonka laga qaaday ayaa dhowr jirib iyo feedh loo geliyay kadibna dadka ayuu dhinac ka raacay dadka joogay xaramka banaankiisa ee maqlaayay ogeysiiska ayaa waxa ku dhacay fariir iyagoo qof waliba meesha uu joogay uu ka orday maadaama la gaaray aakhir zamaankii halka ay qaar kalena ay ku soo ordeen masjidka si ay uga qayb qaataan baayacaada hase yeeshee waxay arkeen masjidka oo wada xidhan mahdiga iyo goortuu soo bixi doono waa arin dhab ah oo ku sugan kutubta iyo sunnada laakiin aan si xun loo saadaalin karin goortuu soo bixi doono iyo qofka uu yahay intaba mahdigu waa nin wanaagsan oo soo bixi doono aakhir zamaanka ka hor intaanu ciise calayhi salaam soo degin ma aha qof isa soo sharaxaya ama hore loo ogaa hal habeen ayuu ilaahay ku hanuuninayaa hoggaanka ummadda sifaadkiisa ugu muhiimsanna waa in uu ku abtirsadaa qoyska nebiga calayhi salaam oo dhanka xasan ama xuseen magaciisa iyo magaca aabihiis waa inuu waafaqaa magaca nebiga sallallahu calayhi wasallam waxa kale oo muhiim ah inay dhici doonaan arrimo kale oo gogoldhig u noqon doona imaanshihiisa dowladda lagu tuhmay qabsashada xaramka markii xaramka la qabsaday dhammaanba madaxda sare ee qoyska Sacuudiga dalka waa ay ka maqnaayeen marka laga reebo boqor Khalid oo isaguna xanuunsanayay intoodii joogtay waxay go'aan ku gaadheen inaanay arrintu banaanka u bixin si aanay ugu fidin wadamo badan oo ay isku hayaan hoggaanka ummadda sida Masar iyo Ciraaq oo iyaguna ka shaqeynayay in ummadda lagu mideeyo carabnimo dhammaanba khadka taleefanka ee wadanka ayaa la jaray waxaana sidoo kale la dhigay ciidamo dhammaanba wadooyinka laga galo magaalada Makka waxaana la mamnuucay warbaahinta adduunka inay timaado oo ay ka waranto dhacdadani ummadda islaamka ayaa waxa ku dhacay jahwareer iyagoo isweydiinaya cidda qabsatay xajka inay gaalo yihiin iyo inay muslim yihiin dad badan waxay tuhmiyeen shiicada reer Iran oo iyadoo hawlgallo isbedel ka waday Iran waxayna toonkaasi sii xoojisay iyadoo dhacdadani ka hor ciidamada Sacuudiga iyo shiicada degan koonfurta wadanka ay gorada iskula jireen taasi oo dhiig badan ku daatay qaar kalena waxa ay la fooleen reer galbeedka oo ay si gaar ah Mareykanka isha ugu hayeen isagoo xiriir dhow la lahaa dowladda Sacuudiga Khomeiniga reer Iran oo ka faa'iideysanaya aamuska qoyska reer Sacuudi ayaa ka sii daayay warbaahinta adduunka inuu Mareykanku qabsaday xaramka maadaama uu yahay cadowga koowaad ee islaamka dad aad u cadhaysan ayaa weeraray safaaradda Mareykanka ku leeyahay wadamada Pakistan, Liibiya, Bangladesh,
meesha safaaradda Mareykanka ee wadanka Iran ayaa hore ay u qabsadeen arday ka cadhaysan siyaasadda Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa cadaadis ku saartay Sacuudiga inay warbaahinta ka hadasho oo ay caalamka u sheegto cidda xaramka haysata in aysan Mareykan shuqul ku lahayn. hase yeeshee warkii ay soo saartay dowladda Sacuudiga ayaa noqday kadar oo dibidhal kadib markii ay ka gaabsatay in qolooyinka fallaagada ah ee rabshadaha ka sameynaya xaramka iminka wax laga qabtay ayaga oo sheegin cidda ay yihiin. taariikhda fallaagadii xaramka qabsatay Juhayma bin Mohammed ibn Sayf al-Utaybi waa aasaasaha dhabta ah ee kooxda Juhaym waxaana uu dhashay 16 September 1936 wadanka Sacuudiga. intii aanu qaadan fikirka Juhayma waxa uu ka soo shaqeeyay ciidamadii nabad sugidda ee wadanka Sacuudiga muddo 18 sanadood. Juhayma waxa uu ku biiray jaamacadda Makka al-Mukarrama oo uu ku baran jiray falsafada al-Islaamiyya. muddo yar kadibna waxa uu wareegay jaamacadda Madiina Munawwara halkaas oo ka bilaabay fikirkiisa diineed ee ku salaysnaa in dadka diinta lagu celiyo isagoo xooga saaraya dhulka baadiyaha. raggii ugu horeeyay fikradiisa qaatay waxa ka mid ahaa nin la oran jiray Maxamed ibn Abdullah al-Qaxdaani oo qabay Juhayna walaashi kana mid ahaa xerta Sheekh ibn Baatha. Juhayma iyo Maxamed Abdullah waxa ay ka mid ahaayeen dhalinyaro badan oo saloogsanayd nidaamka qoyska reer boqortooyo iyo inay ka baxaan ballamaha badan ay hore ula galeen shacabka iyo culimada diinta. dhanka kale Juhayma iyo kooxdiisu waxay tuhmayeen culimada waaweyn iyagoo u arkayay in ay la shaqeynayaan nidaamka qoyska oo aanay gudanaynin al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'ala al-munkar. Juhayma iyo kooxdiisu waxay ku qanceen in la gaaray waqtigii soo bixi lahaa mahdigii la wada sugayay kadib markii ay arkeen waxyaabo badan oo adduunka ka dhacaya. waxaana la sheegay in ay hal habeen riyo ku arkeen in uu Maxamed ibn Abdullah al-Qaxdaani uu yahay mahdiga la sugayay. Maxamed oo ahaa nin cibaado badan oo xaafidul Qur'aan ayaa sheegay in aanu dhameystiri karin shuruudaha mahdinimo maadaama aanu ku abtirsan nabigeena Maxamed calayhi salaam. hase yeeshee Juhayma ayaa ku qanciyay Abdullah ibn Maxamed in uu sheegto in uu Quraysh ka soo jeedo asal ahaan. dowladda Sacuudiga ayaa gudaha u taxaabtay qaar ka mid ah markii la arkay khatarta ay soo wadaan mustaqbalka dhow ka hor weerarkii xaramka. culimada Sacuudiga iyo Sheekh ibn Baas ayaa ka codsaday dowladda inay iska cafiso waa intaas oo ay ka noqdaan fikirkaasi. في الحرم هناك طوابق سفلية كما ترى تحتوي على أكثر من 300 غرفة، وفي هذه الغرف كان هناك مستودع للأسلحة، مستوصف، غرفة طعام مع تمر وماء. كل شيء كان مخططا له منذ وقت طويل. نحن بعد 3 أسابيع من نهاية الحج. خلال الحج كان في الحرم قرابة 350 ألف حاج، بقي نحو 150 ألفا، منهم 50 ألفا في الداخل. لقد كانت أكبر عملية احتجاز رهائن. sida ay hubka ku soo galiyeen masjidkan waxaa jiray laba sheeko oo arintaasi ku saabsan. mid hore waxa la soo galiyay xaramka iyagoo xambaarsan sanduuqyada meydadka lagu qaado oo hub ka buuxo xaramka. salaad walibana waxa la keenayay meyd lagu sido sanaaduuq si loogu tukado. midda labaadna fallaagadu waxay la heshiiyeen shirkadda Ibn Laden oo mas'uul ka ahayd dhismayaasha xaramka oo ay lahayd albaab u gaar halkaas oo ay ka soo gelin jirtay hub fara badan. mid ay noqotoba waxa la soo galiyay hubka oo aad u culus iyo ciidamada Sacuudiga oo u taagiyo maaro waayay. sidee lagu xoreeyay xaramka? waxaa la sheegay in dowladda Sacuudiga ay kala tashatay culimada in ay xoog loo adeegsado kadib markii ay diideen inay soo dhiibaan. qoraal la yiraahdo Yaroslav ayaa qoray buug la yiraahdo The Siege of Mecca oo la oran karo waa buugaagta yar ee arintaasi laga qoray. dhacdadanina waxa uu sheegay inay jireen ciidamo Faransiis oo gacan ka geystay howlgalka laakiinse aysan gelin xaramka gudihiisa. xoreyntuna waxay qaadatay 3 marxaladood. marxaladda koowaad waxa la adeegsaday ciidamadii nabad sugidda, hase yeeshee madaxa way soo gelin waayeen xaramka agtiisa kadib markii madaxa laga wada toogtay. marxaladda labaadna waxa la yareeyay ciidamadii militariga, commandoska iyo kuwii sida khaaska ah loo tababaray.
ciidamada oo isticmaalaya hubkiisa kala duwan iyo gawaarida gaashaaman ayaa waxay ku guuleysteen inay xoreeyaan ilaa xajar aswadka markaas oo ay falaagadu isugu guureen godka hoose ee dhismaha xaramka. dagaalku waxa uu ahaa mid ay ku hoobteen labada dhinac. saraakiisha ciidamada hogaaminaysana waxay noqdeen mid dhintay iyo mid dhaawacmay iyo mid la qafaashtay oo godka lala galay. waxaase xusid mudan in askarta qaar ay diideen inay kabcada Allah xabad ku furaan, laakiinse lagu amray. markii ay arrinku halkaasi marayay ayaa loo baahday khubaro kale oo hawshani gacan ka geysata. wadamo badan sida Jordan, Pakistan iyo Morocco ayaa muujinayay in ay diyaar u yihiin inay soo diraan ciidamo, hase yeeshee Sacuudiga ayaa ka gaabsaday iyagoo ka baqayay in ay hadhow ku farageliyaan maamulka Maka iyo Madiina iyo in ay ku mana sheegtaan. waxay dantu dhaafi weyday in la miciinsado xagga iyo reer Yurub iyo rag xoog badan. Mareykanku waa uu iska soo taagay oo hore ayaa loogu tuhunsanaa in ay arrintani ka dambeeyeen. haddii lagu arko ciidamo ay leeyihiin Maka iyo meel u dhow, waxay ka baqayeen in arrintu ku noqoto mid dab ku sii shida. wadanka Faransiiska ayaa muujiyay inuu diyaar u yahay buuxinta booska Mareykanka. kulan iyo wadatashi badan kadib, Faransiiska ayaa soo diray 3 nin oo khubaro iyo diyaarado xambaarsan sunta khatarta ah oo la mid ah tii ciidamadii Ruushku u isticmaaleen tiyaatarkii Moscow 2002. dad badan waxay aaminsanaayeen in 3 nin ee Faransiiska ah soo galeen xaramka iyaga oo hogaaminaya ciidamada meesha ay galaan, laakiinse waxa loo badan yahay in ay arrintu sax ahayn. Commandoska Sacuudiga oo xambaarsan sunta Faransiiska ayaa galay godka ay ku jireen falaagada ilaa la xoreeyay meesha oo dhan. dad badan waa la dilay, dad badanna waa la soo qabqabtay iyagoo nool oo suuxsan. Maxamed ibn Abdullah waxa uu ku dhintay dagaalkii ugu horeeyay ee lagu xoreynayay qaybta sare ee masjidka. dhowr jeer oo looga digay inuu ka gabado xabadda, waxa uu dhihi jiray suurtagal ma aha inaan dhinto ilaa aan guto hawsheeda oo Allah ii soo diray. qaar ka mid ah falaagada oo ogaaday geerida ayaa muujinaya walaaca ku saabsan dagaalka iyo sida uu xaq u yahay iyo in la gaaray aakhir zamaankii. hase yeeshee Juhayma ayaa amar ku siiyay inay iska aamusaan oo aanay gaarsiin dagaalyahanada kale. Juhayma iyo dagaalyahano badan ayaa gacanta lagu soo dhigay iyaga oo dhaawac ah iyo waliba qaar kale oo la suuxsan sunta. waxaase cajiib ah dagaalka intaasi socday in dumar iyo caruur meesha ku jireen. waxa kale oo cajiib ah dadka meesha ku noolaa inay ku noolaayeen timir iyo biyaha samsamka oo ay u isticmaali jireen daawo ahaan qofka dhaawacma. Juhayma markii la qabtay waa uu diiday inuu hadlo ilaa ay yimaadeen qaar ka mid ah culimadiisa, markaasi oo ay weydiisteen in uu dambi dhaaf loo weydiiyo Ilaahay. sanad kadib, Juhayma 67 qof oo kale ayaa lagu toogtay magaalooyin kala duwan oo wadanka Sacuudiga. waxaana jira qaar kale oo ka badbaaday xukunkaasi oo la cafiyay muddo markii ay xidhnaayeen.